بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله دمان ardayda Soomaali Star Online Training casharada kala duwan English language and computer teaching waxaan la soo xiriiri doonaa Soomaali Star Online Training iyadoo casharada ay noo soo dhamaan rabaan wax yar baa inooga haray inta ugu muhiimsaneed casharadan waa soo qaadanay waana Soomaali Star Online Training casharada inoo socda cookbooks waxaa kaloo inoo soo socda cashbooks waxaa kaloo inoo soo socda software kala duwan oo Cisco Packet Tracer ay ka mid tahay networking casharada sida configuration rootedka iyo switchada isugu xiri karna waa inoo soo socdaan waxaa kaloo inoo soo socda casharo fara badan oo aad software fara badan baa inoo soo socda iyadoo step by step aan u qaadanayno casharada kala duwan markaas Somali Star Online Training step by step uga faa'iideyso casharadan tilaabo oo arki kara okay casharadani cookbooks baan ku jirnaa step by step cookbooks Somali Star Online Training cashirkii waxaan usii gudbinaa 17aad waana muhiim jiddan taas inaan aragno marka casharadani way iska soo dhamaanayaan cashirkii 17aad maadaama aan usii gudbayno waxaan kusoo ilaalinayaa page-keena professional English and computer teaching waxaan la soo xiriirinaa Somali Star Online Training iyadoo casharo kala duwan aan ka faa'iideysanay haddii aan nahay ardayda Soomaaliyeed meel walba oo adduunka ka joogno okay cashirkeena maanta wuxuu noqon doonaa sidaan usoo iibin karno office equipment annagoo isticmaalayna cookbooks ku shaqeynayno sidee baan usoo iibin karnaa company hadiina laga codsado oo aan nahay administrator ama haddii aan nahay chief accountant waxaan la weydiisanayaa inaan soo iibino kuraas inaan soo iibino misas inaan soo iibino company haddii cusub yahay kombiyuutarro lagu shaqeeyo inaan soo iibino printerro waxaasoo dhan baana laga codsanayaa dadkii shirkadda lahaa naga codsanayaan marka sidee usoo iibinaynaa waxaan soo dhaaqayaa waxaan imaanayaa company ila soco company baan imi meel kale oo kasoo tegi karnana waa idin tusin doonaa meel kale journalkaan soo gelayaa mar allaalay markaan journalka soo gudagalo ayaan halkaas ka sameynayaa waana muhiim jiddan taas step by step ardayda Soomaaliyeed meel walba oo adduunka ka joogaan waa tilaabo inaan u qaadi karno okay markaan make journal entry aan soo galno accountigii baan soo gudagalaynaa marka aan kasoo dalbi lahayn waa dahabshiil okay waa bangigeeni debit iyo credit bangigeena markaan dhigayno aan soo gadayno waa qoraynaa kadibna xisaabta ayaan gelin doonaa iyo bangigaan ka bixinayno halkaan marka bangigeena ugu yaalo waa iska tiraynaa waxaan u baxsan karnaa marka office equipment waan setup garaynaynaa office equipment ma yaqaano okay office equipment muxuu noqon karaa marka halkaan ka fiiri bangiga ku select garayn lahayd unbaa ugu muhiimsan office equipment waxaan raadinaynaa waxaan ka dhigi lahayn ma other assets ba ma other current asset ba ma liability ba muhiim jiddan weyna halkaan ka fiirino halkaana imaanayaa fixed kan qaadanayaa aan ka tegayaa okay office equipment safe and close baan leeyahay marka halkaan aan qorayaa waxaan soo gadi lahaa marka halkaan debit waxaan gelin doonaa lacagtii baan kala gelin doonaa laakiin maxaa muhiim jiddan marka hore inaan qoro wixii aan dalbi lahaa si aan lacagtii wixii usoo geliya halkaa okay waxaan halkaa gelinayaa 200 ama 2000 oo badeecaan soo gadan doonaa ila soco markaa waxay tahay inaan cadeyn doono bangigaan ka bixinayaa bangigaan dooranayaa office equipment yaan leeyahay qoraya halkaasaan ku qorayaa marka waxaan furniture kasoo gaday qalab xafiiseed markaa safe and close baan raacinayaa safe and close dalabkii wuu dhacay 2,000 baan bixiyey okay iyadoo aan soo iibinayno badeecooyin kala duwan iyadoo aan soo iibinayno waxyaabo fara badan ayaa waxaan sameyn karnaa inaan soo iibin karno kambanigii aan wax usoo iibin karno step by step inaan u qaadano waana muhiim jiddan taas iyadoo casharo kala duwan hore ardayda ay usoo arkeen okay marka casharadeenii taxanaha ayaan weli kusii guda jirnaa marka tilaabo baan u arki doonaa casharadeenna faraha badan
annagoo ka faa'iidaysan doono si tartiib tartiib inaan uga faa'iidaysano. Okay office equipment waa soo iibinay. haddii company aan u nahay chief accountant ama haddii aan u nahay administrator company baan ku noqonayaa marka journalka ku noqonaya. waxaan kaloo company usoo iibin karnaa inaan ka bixino waxaan awood u leenahay waxaan awood u leenahay inaan soo iibin karno alaab kale. haddana alaabta kale maxay noqon kartaa marka? waxay noqon kartaa fiiri ila socaalka ah. waxaan usoo iibinaynaa companyga gawaari oo kale, baabuuraan qoray wuxuu noqonayaa halkan waxaan ka bixinayaa baabuurka 1500. halkaan aan soo gelinayaa 1500. lacagta waxaan ka bixinayaa bangigeena, jeeg ahaan baan u bixinayaa. waa baabuur loogu tala galay in uu badeecooyinka qaado. waa kaasasaan siminaa. waxaan kasoo iibiyey dukaankan kasoo iibiyey ayaan kusoo cadeynayaa. marka name baa halkan gelin karaa. memoga xasuusta waa geliyey. dukaankan kasoo iibiyey, dukaankan sii raacin karaan kasoo iibiyey. safe and close baska leh yes baan leh. marka wixii aan soo iibiyey hantideena ka mid noqonaysaa. waxaa imaanayaa report finance balance sheetka kusoo gelaysaa. badeecadan waa soo iibiyey laakiin xagee imaanaysaa? waa inay balance sheetka imaadaa. waa kaa 1500 aan kusoo iibiyey baabuur. office equipment 2000 baan kusoo iibiyey. 3500 waxay ka mid noqotay assetskeena. iyadoo cashiro kala duwan hore aan usoo qaadanay. refresh baan leeyahay. halkan soo iibinta qaabkaas waxaan kusoo iibin karnaa kambanigeenii. interbilna waxbaan kasoo iibin karnaa oo bilasha inaan xareyno ayaan waxaan kusoo iibin karnaa. sidaas oo kale bybill waan kasii bixin karnaa. iyadoo cashiro kala duwan oo soo qaadana Somali Star Online Training. kambanigeenii bangigeenii waxaa ka go-ayo lacagaha ka go-ayo. halkan waan ogaan karnaa lacagaha naga go-ayay qaabkay noo go-ayaan. waxaasoo dhan wax weyn ma aha. iyadoo cashiro kala duwan hore aan usoo baranay. halkaasaan sii maraynaa Somali Star Online Training. cashiradii kala duwanaa markaa sidaa maanta waxaan qaadanaya office equipment u iibin karno. iyadoo cashir kalena aan bilooyin aan kusoo dhisi doono. cashirada kalena waa iska gabagabo. cashirkii waxaan sii maraynaa 17aad baan hadda qaadanay. 18 baan usii gudbaynaa. 20 cashir buu kama badno. 20 cashir buu ku go-ayaa ku dhamaanayaa. sidaa darteed markaa fi amaan allah dhammaan ardayda Somali Star Online Training meel baa adduunka ka joogaan waxay ka faa'iideysan doonaan Somali Star Online Training. iyadoo cashiradaas kala duwan ka faa'iideysan doona. sidaa darteed fi amaan allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.